السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصحابتك سو دواada janalka Faiza's World. maanta waxaan noo hayaa shaambo aan ku darsanayno acsaab dabiici ah oo uga hortagayno kiimikada shaambada ay leedahay sida sulfate-ka shaambada lagu daro iyo silicoonka acsaab yar oo waxaan ku darsanaynaa oo uga hortagayno kiimikada laina waxa waaye kiimikada oo shaambada lagu daro timaha way qalajinaysaa tani shay timaha waxay u sababaysaa agool sidoo kale waxay u sababi kartaa jajab timahana markaas waxa waaye waxay noqonayaan timo oo yani caafimaad aan lahayn bixitaankooda yaraanayo marka maanta shaambada waxaan ku darsanaynaa wax dabiici ah basiid ah guryaheena aan ka helayno acsaab dabiici aan ku darsanaynaa iyo waxaan kale ku darsanaynaa burtuqaalka qobkiisa oo vitamin C oo ka buuxo maasha Allah tabarakallah shaambo waxa waaye oo naga saacidaysa timaheen inay noqdaan timo caafimaad leh oo baxayaan oo qurux badan oo maasha Allah soo dhawaada asxaabta videoga like noo saara share gareeyna asxaabtiin u share gareey haddii aanu cusubtaa marka ugu horeysa janalka aad soo booqatan waxaan ku leeyahay ahlan wasahlan kusoo dhawow gacmo furan janalka subscribe taabo gambaleelkana furo aad iyo aadan ugu wada mahadsantihiin soo dhawaada marka xabaayibi shaambada marka waxaan ku darsaynaa oo meeshaan noo yaalo burtuqaal liinta burtuqaalka ah waxaan ka isticmaalaynaa qobkeeda yacni liin macaan waaye qobkeeda isticmaalaynaa iyo waxaa kaloo isticmaalaynaa rosemary iyo dhagayara oo waxyar aan ka isticmaalayno saddexdaas shay aan u baahanahay shaambada aan ku darsanaynaa marka hore waxaan sameynaynaa rosemary-ga iyo waxaan isku qasaynaa dhagayaraha waxyar oo dhagayaraha ma ka badinayno iyo rosemary aan isku darsanaynaa biyo kuleel aan ku qasaynaa waa dabooleynaa waxaan u sugaynaa ilaa iyo 3 saac 4 saac meelahaas si yacni biyaha ay noogu soo galaan fitamiinaadka ka buuxo marka waqtigaan siinayna waxaan u sugaynaa ilaa iyo 4 saac meelahaas aan sugaynaa rosemary-ga maanta aan shaambada u isticmaalayno maasha Allah wuxuu naga saacidayaa waxyaalo badan wuxuu ka hortag u yahay kiimikada oo shaambada lagu daro marka hore wuxuu u fiican yahay agoolka sidoo kale timaha go'itaanka oo yareeya go'itaanka u fiican yahay timaha wuu nadiifiyaa nadiif oo ka dhigaya timaha sidoo kale quwo siinaya xoog u yeelaa wuu soo bixiyaa timaha wuu bixinayaa maasha Allah waxaa kaloo timaha u siinaya dhalaal iyo tartiib yacni wuu ratibaya nacuum uu siinaya maasha Allah tabarakallah dhinaca timaha rosemary-ga aad iyo aad ugu fiican yahay يعني waa aragteen saliid kasto la sameeynaayo timaha rosemary-ga waa lagu daraa maskaadka sidoo kale oo xinaha oo kale rosemary-ga ma ka maqno aad iyo aad timaha u qurxiyo ugu fiican yahay woona bixiyaa timaha waa dheereynaya masha Allah tabarakallah marka shaambada saas waxa ugu darsanayna maantana waxa waaye ka hortaga oo silicoonka iyo sulfate-ka waaye oo shaambada lagu daro يعني waxay naga saacidaysaa silicoonka iyo sulfate-ka oo shaambada lagu daro waxaa kaloo sameynaynaa burtuqaalka qobkiisaan qaadanaynaa burtuqaalka qobkiisa marka waa karinaynaa dab gaaban aan ku karinaynaa qobka bas aan ka isticmaalaynaa marka waxaan ka qaadanaynaa laba xabo oo liinta burtuqaalka ah ama liin macaanta isticmaalaynaa qobkeeda aan ka qaadanaynaa dabkan wuxuu saarnaanaa ilaa 10 daqiiqo yacni karis badan ma u baahno bas waxaan u sugaynaa ilaa 10 daqiiqo ka bacdina insha Allah waa shiidaynaa waxaan kusoo darsanaynaa oo kula karinaynaa in 2 bakeeri oo biyo ah iyo waxaa waaye laba xabo oo liin burtuqaal qobkeeda marka dab gaaban aan ku karinaynaa waxa u sugaynaa ilaa ay rubac saac meelahaas ka bacdina insha Allah isla arkaynaa liinta burtuqaalka iyadana faa'iido badan ay timaha u leedahay waxaa ka buuxo vitamin C madaxa way nadiifinaysaa wasaqday aad uga nadiifinaysaa waxay u fiican tahay agoolka sidoo kale go'ida timaha ka yareynaysaa timaha meesha ay ka soo baxayaan qubaysiisaa xoogi u yeelaysaa maasha Allah way ratibaysaa dhalaalay siinaysaa nacuumay siinaysaa وكان هذا ماشي أنا قصدي يارنا وسوشيدني بعد 10 دقيقة يعني 8 دقيقة كدب وسوشيدني كدبني وحاسمينا واميرني لازم إلا ميرو واي أقب كلا ميرو لأنه مركل الشيدو هذا نحو باهيا إلا ميرو مركوا صو ميرني هذا نحو كركو صدر سينا دقيري روزميري قان سو قصني وحينا قصو شبينا إن بكيري وكل جسم استعمالا بكيري نسكي استعمال استعمالينا marka hadda waa kaas diyaar oo yahay liinta burtuqaalka qobkeedii iyo waxa way rosemary-ga iyo dhagayaraha isku qasnay waxa ku soo darsaynaa shaambada marka shaambada caag waxa noogu jira rubac camal noogu jira nuskeeda ma ahan waa ka hooseeya nuskeeda waxyaraan kula qasnaynaa yani rubac camal qiyaastii oo waxaan ku soo darsanaynaa oo alaabta aan soo diyaarsanay burtuqaalka iyo rosemary-ga iyo dhagayaraha inta kalena waxaan ku darsanaynaa shaambadaan intada oo kale marka si fiican in loo qaso waayo oo si fiican la isku wada dhexgeliyo waa kaasa haddana shaambadeena diyaar ay noo tahay maasha Allah hata saasay noogu soo baxday shaambo waxa waaye oo khafiif naacim ah laana waxaan ku darsanay rosemary-ga iyo dhagayaraha biyahoodan ku darsanay yacni biyaha aan waxa uga soo qaadanay dabcan fitamiinaadka ka buuxo sidoo kale waxaan ku darsanay liinta burtuqaalka qobkeeda وأنت سوق دم بيستي شامبل ساسين وصوب بحذي ما شاء الله
shampoo waxa waaye saxi ah oo caafimaad leh oo timaha noo bixinaysa oo ka hortagaysa kiimikada oo shaambada lagu daro maasha allah tabaarakallah ugu dambeystii waa taasaa saas inuu kusoo baxday waxaa kale oo videogan aan kusoo dirayaa shampoo oo hore aan soo sameysanay shampoo qasil shampoo idan waxa waaye aad u fiican oo qasil aan ka sameysanay oo timaha nadiifinaysa iyadana maasha allah timaha badinaysa oo quwa siinaysa laana waxaan ka sameynay qasil marka waxaan ugu talagalay gabdhaha oo janalka ku cusub iyo gabdhaha oo hore u arkin inay ka faa'iidaan iyagana ay arkaan waa kana asxaabta qasilka isticmaalayno qasilka marka asxaabta waxaan ka isticmaalaynaa laba qaado waaweyn oo qasil ah ama quse waxaan kula darsanaynaa 2 bakeeri iyo bar oo biyo oo kuleel ah marka hore bakeeriga koowaad aan ku dareynaa waa qasaynaa kadib haddana bakeeriga iyo barka gadaal ugu dareynaa markaas insha allah haddana waxaan kusoo darayaa bakeeriga kale oo labaad gadaalna waxaan uga daranay asxaabta nus bakeeri marka labada qaado oo waaweyn waxaa u isticmaalaysiin 2 bakeeri iyo bar oo biyo kuleel ah haddana waxaan sameynaynaa qasilka waxa waaye mudda u sugeynaa waa dabooleynaa yani waxaan u sugeynaa adi ilaa nus saac kadib markaas aan isku soo noqonaynaa insha allah waa kana asxaabta haddana nus saac kadib qasilkeena waxa waaye saas soo noqday haddana waa miiraynaa يعني ستة مو استعمالنا وحوالي لازم إن أميرنا ويقشن إيه وحوليه iyo qasilka يعني qaybta oo يعني oo culus oo kale يعني sida maaskada oo kale si toos ah loo isticmaalaa markii qasilka la isticmaalay laakiin se markii shaamba aartina ka dhigatid laazim in la miiro waaye marka waa miirayna laana waxa waaye biyaha aan ku shubnay waxa waaye fitamiinaadka ku jiro dhan biyahay soo raaceen aan uga baxayna marka ma u baahnin intaas oo qashinka ma u baahnin waxa u baahanahay bas biyihiisan ka qaadanayna marka inta yar oo qashinka ah leen ka miiraynaa waa kaas asxaabta haddana markaan miirnay qasilkeena saas oo noo noqday haddana waxa waaye waa shiideynaa si fiican u shiideynaa si aan u helno xumbadiisa sidoo kale si oo naacim noogu noqdo oo timaha nooga qabsan maasha allah markii aan soo shiidnayna waa kaas asxaabta saas oo kusoo baxay yani wuxuu noqday sida shampoo camal oo noqday xumbo fiican oo yeeshay haddana asxaabta waxaan kusoo darsanaynaa 2 qaado oo shampoo ah shampoo caadi ah shaambada adigu naasibtay oo timaaga u isticmaashida markaas waxa ka qaadanaysaa 2 qaado marka shaambadan aan ka isticmaalnaa shaamboo naasibtay way shaamboo fiican way ma xumo shaambadan waxaan ka qaadanaynaa 2 qaado marka aan ku darsanaynaa qasilka labadaas qaado ku dareynaa shaambada marka lagu darana waxa waaye in lagu shiido ma aha qasilka kaligiisa marka hore aad soo shiidane kadibna shaambada markaas 2 qaado gadaal ugu dareysa marka waxa sameynaysaa marka hore qasilka kaligiisa soo shiiday qasil kaligiisa marka shiidid oo ku xumbeeyo kadib markaas waxa ku shubanaysaa 2 qaado oo shaambada ah haddana waa kaas asxaabta shaambadeena dabiiciga ah oo qasilka saas diyaar noogu tahay caagana marka aan ku shubanaynaa oo shaamba hore nooga dhamaatay oo si fiican u soo dhaqnay caagana u isticmaalayna aan ku shubanaynaa waxaan u isticmaalaynaa dubnad si oo shaambadeena ay nooga daadan ما شاء الله شامبو oo waxay ku soo baxday qurux badan oo kaal iska arag ah shampoo caafimaad leh oo kiimika aan lahayn shampooyinka waa aragteen asxaabta badanaa kiimika ay leeyihiin ilmahan waa loo isticmaali karaa caruurta waa loo isticmaali karaa timaha waa loogu dhaqaa kaas asxaabta shaambadeena saasay noogu soo baxday ma sha Allah shampoo dabiici aad u qurux badan oo qasil aan ka sameysanay basiid ah timahana caafimaad u leh gurigana waxa waaye shampoo caa'ili guriga in loo isticmaali karo marka waxaad leeyahay isla ogaada insha Allah asxaabta ka faa'iideysta aad iyo aad u mahadsantihiin aad kaga mahadcelinayo la socodkiina daawashadiina quruxda badan insha Allah waxaan oo balan ee videoga dambe waxaan idinkaga tagayaa khayr badan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh